عكوسيو إنها قليل عكوسيو telefishinka RTN TV waxa uu ka qayb galay isla markaasna u kuur galay arooskii qarniga hadda saacada hadii aynu eegno waa 12 badhka habeenimo saacada geeska Afrika waxaanu ku sugannahay deegaanka gogol wanaag ee ka tirsan gobolka Gabiley gaar ahaan degmada Arabsiyo daawadayaal waxaa halkani ka dhacaya aroos aad iyo aad u qurux badan oo cajiiba kaasi oo 19 jirkii labada dumar hal mar wada aroosay waa Ismaaciil Samsam iyo Nuura haddaba arooskani ayaanu jecelahay inaan u kuur gallo isla markaasina bal arooskani qarniga lagu tilmaamay ee iyagu dhalinyaradaasi iskuursaday waa 19 jir 17 jir iyo 18 jirkaas aroosay waxaan jecelahay bal arooska iyo labada aroosadood ee halka mar la wada aroosay oo caawa ay u tahay habeenkoodii labaad isla markaasina loo yaqaan gaafka inaan u kuur gallo waxa jira iyaguna dadweyne aad iyo aad u tiro badan oo iyaguna ka soo qayb galay gaafkan isla markaasina meelo fogfog kala yimid oo iyagu halkan ciyaaro kala duwan isku dhaafsanaya aqalada aad arkaysaan waa labada aqal ee lagu kala hoyn doono labada aroosadood ee halka mar uu Ismaaciil uu wada guursaday waana aqalada loo yaqaan laba daryaalaha waxaan jecelahay arooska labada aroosadood iyo waliba ciyaaraha kala duwan ee meesha ka dhacaya inaynu u kuur gallo صوتان موضي مريم إني مقنيدو أمني جوجين ماني جوجين يا ماني جوجين بيباقو أمني جوجين ماني جوجين يا ماني جوجين بيباقو أمني جوجين ماني جوجين يا ماني جوجين أوكا يو نفسي قلي صار نقشدا إن عسنمو أن هدي كناوي أقبوا على دور نصيب كويسو كسيمو اسماعيل عبد Ismaaciil da'daadu waa imsijir 19 jir wahagaag adigoo 19 jir oo aad u da'yar ayaad raggi kala dhaaftabeen oran karnaayo maxaa ku suura galay inaad kalsoonida inta yeelato inta leegeed labada dumar ku wada guursanayso waxay suurta galiyay labada gabdhood oo sheekaysan jirnay haye marka wada sheekaysigii badan wada sheekaysanayna wada sheekaysigu xilligaas guursanay gaadhay haye labada gabdhood waxaan ku keenay inaan isguursano haye saddexdood waan sugeyn haye sugaashii bay gaadhay xilligaas guursanayna markii ay gaadhay waan mid soo horkaxiyay haye mid soo horkaxayntii wadana tii kala igu kaliftay soo kaxayntii wadana iyadana soo kaxaystay wahagaag labada gabdhood ma midkood baad horbaratay ma hal mar baad wada baratay bal anaga iyo daawadayaasha ayaan jeclay inaad qisada si fiican aad noogu sharaxdo hal mar baan wada bartay haye markii hal mar aan wada bartayna saasan u wada xidhiidhnay halkeed ku baratay gogol wanaag haye gogol wanaag marka ku bartay waan halkii ka wada xidhiidhnay wada xidhiidhkan markiisa isku guursanay marka iyagu miyay hore isku yaqaaneenoo adigu sheekaysiga aad la sheekaysatay ka hor iyagoo wax aqoona oo ka dhaxaysa miyay jirtaa arday baan wadahayn saddexdiinaba haye isku arday baan halkii ka wada xidhiidhnay haye markaan ka wada xidhiidhnaan dusaa u heshiinay saddexdood ku wada heshiinay haye heshiiskii waan soo wada galnaa saasaan isku guursanay wahagaag labadaada xaas haddii aad magacyadooda noo kala sheegto bal noo sheeg samsam maxamed daahir iyo nuure maxamed cabdilaahi saasaan wada xidhiidhnay samsam maxamed daahir iyo nuure maxamed cabdilaahi saasaan wada xidhiidhnay wahagaag nin dhalinyaro baad tahay maxaad ugu tala gashay hal qoys baad hal mar wada yagleeshay oo weliba laba gabdhooda maxaad ugu tala gashay ka kalsooni ahaan iyo waxyaabo kale oo kale kalsoonida anaa isku kalsoonaa iguna igu kalsoonahay ya haye kalsoonida markaan isku kalsoonaa saddexdood isku kalsoonaan in isguursano saasay kalsoonidahay haye markii aad doonaysay ee gabdha aad reerahooda ka doonayseen ma jiraan wax caqabada oo iyaga reerkooda kaaga yimid may jirin saas uma tahay iyagu kasakow guurkan aad wada guursatay ma yihiin dad isku faraxsan oo wada qoslayo oo wada sheekaysanaya mise midba gaarkeeday u aamusan may wada qoslaya isku faraxsan aad bay isku faraxsan aad iyo aad bay isku faraxsan
inta badan ragga waxaa lagu xantaa inaanay ka soo bixin kalsoonida qoysnimada oo xoogaa xag u yara janjeersamaan taama laga yaabaa inaad iska jirta adigu haye taa lagama yaabo dhinacna ma jirto labadaba waan dhaxayne yaa saas ku wanaagsan ma jiraa jadwal kaaga qorshaysan ood is leedahay aad labadooda ku kala hagtid haa jadwalku dee aqalba habeen baad galaysaa nuura maxamed cabdilaahi nuura bal waxaad nooga sheekaysaa dareenkaaga iyo jawigaaga habeenkani caawo ay kuu tahay habeenkii labaad ee geefka jawiga waan ku faraxsanahay samsam maxamed daar samsam da'daadu waa imse jir 18 haye ka waran xafladahan iyo arooskan iyo xaajigiina cusub bal ka sheekay jawigaaga والله waan ku faraxsanahay labadeedu haye raali maan kana anaga ku heshiinay haye waan ku faraxsanahay habeenkan noo laba صح سجل مصطفى حسن نور RTN deegaanka gogol wanaag قعكوسيو 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 إنها قليل